sheekadana waxay ka bilaamaysaa dalka Zambia halkaas oo waraabaha ugu badani uu ku nool yahay waqtigan Afrika. kuwa ugu badan ee ugaarsada halkani waa waraabaha. halkani waxaa degan qoys waraaba ah oo ka kooban ilaa 12 xubnood oo kala duwan. qoyskan ta ugu yar waxa lagu magacaabaa Nasanta waana dhadig. waxaanay kala baranaysaa haatan qoyskeeda oo ka kooban xubno kala duwan. waraabuhu markuu dhasho waxaa lagu hayaa ilaa 2 toddobaad meel gaar ah. 2 toddobaad ka bacdi waxaa la kala barayaa qoyska iyadoo cagta kor u qaadaysa. tanina waa mid ka mid ah salaanta dhurwaaga uu leeyahay. Nasanta waa ta qoyska ugu yar waxaana hadda kadib lagu aqoonsan doonaa urta oo xayawaanadu badankoodu isku aqoonsadaan. waa muhiim inuu aqoonsado dhurwaa kasta oo ka tirsan groupkeeda waayo mararka qaar waxay dhex geli kartaa waraabayaal kale. Nasanta nasiib wanaag waa ta ugu darajada sareysa kaabiska yaryar ee dhashay haatan. Nasanta iyo labadeeda kale walaalihii hooyadooda kama helaan waxaanaha ay ka jaqaan dhaafsiisan. Nasanta hooyadeed waa ta ugu darajada sareysa dhammaan qoyskani waxaanay uga faa'iidaystaa awoodeeda inay ku difaacdo qoyskani sidoo kalena ay cunto ugu raadiso dhammaan waraabaha ay maamusho ee kale. galbeed waxa ka saaran qoys kale oo waraabayaal ah kuwaas iyaga aan la istusiba karin oo cadow baan isku ah. waraabaha dhadiga ay uu ka darajo sareeya waraabaha kale qoyskan dhexdiisa. kan yari wuxuu ka mid yahay qoyska waxaana lagu magacaabaa Tuwambow. waraabaha ugu darajada hooseeya waa laga buriyaa qoyskani. Tuwambow waxa uu dhaxlayaa darajada ugu hooseysa ay hooyadii leedahay isaga ayaana taargad ah. Tuwambow aabihii waxa hooyadii ka dambeeya waana ka ugu darajada sareeya xagga labka balse mushkiladu waxay ka taagan tahay waxa ka sareeya dhammaan dhadiga oo dhan kamana difaaci karo wiilkiisa la burin doono. Tuwambow aabihii wala uu ragga u darajo sareeyo haddana Tuwambow hooyadii waa uu ka darajo hooseeya. waxba uma qaban karaan waalidkiisa darajada hoose ka dhaxlay qabiilkooda balse wuxuu kaligii wajahayaa dhammaan qabiilka oo dhan. balse haatan caruurnimo ayaa haysa oo waxa uu iskala qaadanayaa waqtigiisa caruurnimo walaalihiisa kale. Tuwambow waqtigiisii waa uu soo socdaa laakiin haatan waa uu iska ciyaarayaa jaarkuna waa ogaadhiisa. dhammaan species-ka halkan ku nool waxay waajahayaan xilli roobaadkii waxaana haatan laga baxayaa waqtigii abaarta. bini'aadanka agtiisa waraabuhu wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu qiimaha liita. hilibkiisuna diiniyan waa xaaraan. waqtiyada abaarta biyaha waa meelaha ay challenges-ka ugu adag ka dhacan ee xayawaanadu isku waajahaan haday noqoto loo-dabadeedka waraabaha iyo libaaxa laftiisa iyagu halkaa isku food saara. kulaylka iyo huurka dhulku maanta wuxuu gaaray mid aad iyo aad u kulul waxaan u gaaray 51 degree balse waxa muuqata rajo. Tuwambow hooyadii waxba ay dareemaysaa daruurayn uu cirku sameynayo iyo rajo laga qabo inuu guud urto. jawigii marqura ayaa wuxuu isu bedelay roob waxaana ku xagga waqooyi kaga soo wajahan duufaano iyo dabaylo kuwaasoo hogaaminaya daruuro aad iyo aad u culus.
mar qura ayaa jawgu isbedelay waxaana soo food saaray roobab aad iyo aad u culus kuwaasoo duufaantooda wata xayawaanadina waxay isu bedeleen rayn iyo kala orod midba dhankiisa waajahay. markii maalintu dilaacday sayaanta hooyadeed waxa uu soo qaatay hilib ku filan kara dhalaheeda. dhammaan kuwii qaangaadhka ahaa ee waraabayaasha ahaa waxa ay la soo noqdeen hilbo kuwaasoo si raaxo leh ay u cuni karaan dhaluhu. dhalii haatan way dhargeen waxaanay ku ciyaarayaan qayb ka mid ah haraggii lagu soo daray hilbaha. masaanta waxay ka mid noqon doontaa hadhow markay qaangaadho kuwa ugu darajada sarreeya gruubka uguna hor cuna hilbaha iyo raqda hadhow la dilo. masaanta waxay jiqi doontaa naaska hooyadeed muddo sanad ah kanana waxa uu noqon doonaa hilibkeedii ugu horreeyay ee afkeeda saarto.